wax walba wax lagu gaadhaa dadaal iyo samir. haddaba daawade ama dhegayste, tani waa qiso. waxayna ku bilaabanaysaa sida tan. sawirka bidix waa Khaliil Rifaati. waa sanadkii 2013 da'diisu waxay 3 jir. waa daroogayste aad u isticmaala daroogooyinka kookiinta iyo horiinta. waa darbijiif miisaankiisu waa 49 kilogram. jirkiisa waxaa qariyay nabarro, waxaa la xidhan maro badan oo la soo koobi karin. sawirkan waxaa la qaaday ka hor inta uusan isku dayin inuu isdilo, markii uu 9 irbadood oo horiinta oo tandhaaf uu isku dhuftay. sawirka midig waa Khaliil Rifaati, sanadkii 2018 da'diisu waa 48 jir. waa milyaneer. waa isboortiyahan. waa ninka qoray buugga Forked Today. waa ninka iska leh shirkadda Sun Life Organics ee samaysa cabitaanada iyo cuntooyinka caafimaadka u wanaagsan. alaabta ay iibisaa in ka badan $10 milyan ayaa sanadkii uga soo xarooda. haddaba ma isweydiisay adiga maxaa kaa hortaagan horumarka? adiga ayaa sabab ah wax kastoo khalkhal gelinaya noloshaada. adiga ayaa cadow ku ah noloshaada. adiga ayaa nafsadaada ku ah kaana horseedi karin inay horumar gaadho. waa adiga oo kaliya qofka hayaa dhammaan furayaasha nasiibkaaga. haddaba haddaad sheekatan dhammaysatay, maxaad bilaabi lahayd maanta?